Gabadhan qurux ku dhiig leh muxuu ku arkay? Maariish mise Maariya waa gabar qurux badan, waa gabar asturan, waa gabar shidan aan dhaho oo caqli leh. Laakiin maalimahan dambe siduu u dhoolan jiray, siduu u dhowran jiray, siduu u jeclaan jiray, ma xiriirkii dhammaadee oo nooma sheegin miyaa? Ma jaceylkoodii dhammaadee? Ma shaqo ayay imaatay iyo saaxiibtinimo? Maalimahan dambe qurux ku dhiig leh sida hore uma aha. Maariish Beauty waa aragteen, haween walba wuxuu la taagan yahay gabdho kala duwan. Waliba gabadhan Maraykanka ka imaatay oo Itoobiyaanka ah ayuu haween walba la soo fadhiistaa. Qof walbana oo maanta internetka ku jiro oo fiidiyowga daawanayay Maariish Beauty ayuu u dhaxayay. Gabar walba way ogtahay xanuunka ay leedahay nin aan jeceshahay, haween walba la soo fadhiisanayo gabdho kala duwan, meel caalamka dhan laga daawanayo. Xanuun waaye, qalbiga ayaa ku jabaya. Maalimihii hore farxad ayuu siin jiray, maalimihii hore hadalkeeda wuu qaadi jiray, laakiin maalimahan dambe farxad kama muuqato. Ayada dhan ayaa joogin oo qalbi jabsan. Raggeena Soomaaliyeed maxaa ka khaldan? Maanta nin la aamino ma jiro. Raggan ani waxaa la yaabaa waxaa waaye waqti ayaa gelinaysaa, garab ayaa siinaysaa. Haween walba hadduu xanuunsan yahay waa la soo jeedaysaa. Laakiin maalin uu arko gabar isqaawinaysa mise gabar kaa yar shidan, laga yaabo hataa inay kaa shidneen makeup iska soo buuxisay, maalin cad ayuu ka dhaqaaqay. waa qofkii haween iyo maalin aan la taagneed yaa. Maariish Beauty waxaa u maleeyaa waa gabdhaha dhahaan laga yaabo inuu isbedeli doono, aan waqti siiyo, laga yaabo inuu kasoo fikiri doono khaladaadkan uu sameynayo. Haween walba gabdhahan wuu iska dhaafi doonaa, mar ayuu bedelman doonaa. Runta ayaa u sheegaa ayadii iyo gabdhaha nimanka siiyaan waqti ay dhahayaan wuu isbedeli doonaa, inuu weligii isbedelaynin. Maalintuu kugu bilaabo inuu ku khiyaano oo intaasoo gabdho la soo fadhiisto oo intaasoo gabdho la baashaalo ayaa ugu dambeynaysaa ixtiraam xiriir. Maalintaas ayaa ugu dambeynaysaa wax jecel la dhaho. Waxaana sugaysaa dhehaysa waqtiyaan siini doonaa, laga yaabo inuu isoo bedelo. Runta ayaa ku sheega. Midda kale Ilaahay quruxda ku siiyey, ninkan waa ka shidan tahay. Rag waxaa jiraan ka ragsan, ka qurux badan. Maxaa halkan nin le kugu soo xiro mar walba kaa ooysiinayo? Waa xanuun jecel kugu abuurayo. Ay heli karaan ninkay rabaan ayaa nin oo ka ooysiinayo oo mar walba calool xanuun bixaynin ku ridayo ayay daba ordayaan. Maxaa noocaas u nahnay? Maxaa weligeen u rabnaa nin naga ooysiiyo? War jecel maxaa waaye? Waa inaad farxad ku hesho. Haddaad farxad ku helaynin, haddaan nasasho ku helaynin, haddaana ku helaynin garab, maxaa agtiis kaga taagan tahay oo qiimaha iskaga bixinay? Qiimaha iskaga maxaa hoos iskugu dhigay adig dhan adoo gabar Soomaaliyeed ah oo ninka rabta heli karta, caddaana heli karta, Turkiyana heli karta, warqo qof ka rabta ayaa maanta heli karta. Gabadh asaata shaqaysato oo xoogsanayso oo dhididkeeda xabiiso. Gabdhaha ku fiirsanayaan, gabdhaha mar walba ku daawadaan oo arkayaan waxaa sameynayso oo ninkan u dul qaadanayso. Ka fikir. Maanta way ku daawanayaan. Maanta Maariya waxaan sameynaysaa walaashii naga weynaa waxaan sameynaysaa waa caadi. It's okay inaan nimankan waxaan ugu sameeyaan qalbigana jibiyaan ee haween walba gabdho kala duwan la soo fadhiistaan shaashada, TV-yada ka daawano, telefoonada ka wada aragno. Waa iska normal. Dad gabdhihi yara oo ku daawanaya ayaa u ogolaanaysaa inay tahay caadi nin markuu ku khiyaano. Salaamu calaykum. Maxaa lagu daraa? Ninkan iska dhaafaysaa mise anaga dhanaa ku imaanaa oo kaa jiidnaa?
ninkan wuu ogiye indho kale ma lihid muxuu ragga kale dhaamaa waxa ku aragtay maxaa waaye aad u dulqaadanayso war walaalkaada waa dulqaadanayninbu walaalkaada hooyadaa dhashay maanta hadduu hal markaa oysiiyo mar kale u dulqaadanaynin nin aad social media isku barateen aad isjeclaateen dulqaadkan u qaadayso maxaa ka faa'iidaysaa iyo gabdhahay daawanayaanba oo dhahayaan wallaahi gabaraan mar waxaa jirtay oo isku dhownay ay dhahday ninkaygu i khiyaanaa oo waan iskala socdaa waan cafiyaa wah aabahayga miya nin oo i khiyaanee waxa wanaagga aan ka sugaya maxaa waaye fiicnaashada aan ka sugaya maxaa waaye waxa waqtiga aan siinayo maxaa waaye maxaan ka helayaa maxaa faa'iido ii fadhiya qofka markaa la socoto maanta aad shukaansanayso waxaa la isweydiiyaa qofkan ani maxaan ka faa'iidayaa ma iskala shakiisane ma iskala hadle maxaa ka faa'iidaysaa noloshaada horumar waan jeclahay indhaha u beelaa so what hadda maanta mar walba ku bahdilaa waa ninka keliye mar walbo naag gabar cusub la soo fadhiisto every counter gabar uu ku leeyahay haween walba social media gabar ayuu la taagan yahay muhiimadda aan ninkan kula socoto oo nin kale u arkaynin maxaa waaye ragga kama quruxsano oo ragga caadi average waaye ku jira normal waaye ma aqaani adi waxa aragto waxa indhaha anagaana arkaynin oo adiga aragto ma garanayo wallaahi dumarkeena inta u badan dulqaad ayay muujiyaan markay ku jiraan war hataa kuwa isguursadaan waxaa arkaysaa ninkii iska soo daahayo wuxuu iska soo yacni malaho kuma socdo dhaqan asigna wuu kala socdaa markaas waxay dhahaan ilmahayga abood waay wuu isbedeli doonaa maxaa isku bedeli doonaa goormuu isbedeli doonaa ilaa qiyaama waa cafinayaa war waalidkaada u dulqaadin hadday ku dulmiyaan adheesho hooyo aabo ani isaan marabi laakiin gabdhaheeni ma aqaani waxa ku dhaca gabdhaheeni hore gabdha adagay ahaayeen oo ragga ka cabsanin laakiin kuwan maalimaha dambe waxay iska noqdeen canjeero shaah wuu ku istaagaya waxaa dheesho isbedeli doonaa adi kale iskoolka oo loogu talagalay inuu isku bedelo meesha loogu talagalay inuu isbedeli doono meesha loogu talagalay in lagu ilaaliyo lagu edbiyo miyaa tahay you are not his mother hooyadiis ma tihid waa inaa is ilaalisaa quruxdaasuu ilaahay ku siiyey maxaa hoos isku dhigaysaa qiimaha